maanta oo sabti ah ayaa waxa qorshaysnaa inuu dib u furmo fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland kadib markii ay mudanayaashu soo dhameysteen fasaxoodii caadiga ah hase yeeshee gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa warbaahinta u sheegay in toddobaadka soo socda uu dib u furmayo golahu maanta waxa muddeysnaa in la furo kal fadhiga 26aad ee golaha wakiilada maanta oo sabti ah waxaan shir gudoonahaan isla garanay maanta si loo dhameystiro qorshe hawleedka kal fadhiga la qabanayo iyo hawlihiisa in golaha 4 maalmood oo shaqo aan dib u dhigno sabtida dambana uu furmo isagoo qorshihiisii iyo hawlihiisii insha Allah bilaaban doona sabtida soo socota oo bisha 15 tahay intaasaan jecelahay ku wargeliyo dhammaan shacbiga iyo saxaafadda khilaaf baa ma jiro laakiin hawsha sidii aanu qorsheed u sameyn lahayn ayuu maamulka gudoonaha isla garanay inaan 4 maalmood waxaan xaqiijinayaa in kal fadhigu furmi doono sabtida soo socota si wanaagsan hadii ilaahay ka dhigo furmi doono mudanayaasha golaha wakiilada ayaa muddooyinkii dambeeyay waxa ka dhex taagnaa ismaandhaaf salka ku haya heerka diiwaangelinta madaniga kaasoo si weyn ay ugu kala qaybsameen xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa muxaafidka isla markaana hore u baajiyay fadhi aan caadi ahayn oo gudoomiyaha golaha wakiiladu ku baaqay iyadoo dib u dhacan ku yimi fadhigan uu la xidhiidho khilaafkaasi oo laga dhursugay waxa uu ku dhamaado toddobaadka soo socda Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa